بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وعند وضيال كسو دوادا مش كان قبي أهم وحن كسو قادنينا. Thank you, my brother. Support you. 1 year ago, we were here talking to New Yorkers. واكما زهران ممداني نينكا مسلم كاه ترامب يا إسرائيل يا وليبا دتك تجارة رير نيويورك أي كسو هرجيدين إنو نقضو دقا مقالة نيويورك sidee ninkan oo si cad uga soo horjeeday nidaamka sahyuuniyadda ugu guulaystay magaalo dadka ugu dhaqaalaha badan ay taageeraan Israa'iil xagee ku dhashay goorma ayuu siyaasadda soo galay sideese ayuu ku gaaray heerkan macluumaad faahfaahsan oo arrimahaas ku aadan ayaan idinkugu haynaa barnaamijka dhawaada mar kale daawadayaal maxamed maxamuud cade oo soo baaray xogtan ayaa khadka ku jira maxamed bal hore aan ku bilowno waxa laga yaqaan mamdani زهران كوامي ممداني ayaa waxa uu noqday ninka loogu hadalhayn badan yahay marka ay timaado siyaasiyiinta gobolka New York ee dalka Mareykanka marka la fiiriyo marka laga hadlayo siyaasadda qaranka waxa uu ku dhashay wadanka Uganda waxa uu ka soo jeedaa qoys Hindi ah oo lagu yaqaano in ay aqoonta iyo fanka xididda ku leeyihiin. Mamdani ayaa siyaasadda Mareykanka ku soo kordhiyey oo waxa lagu sheegay in uu ka duwan yahay dadkii hore uga shaqayn jiray gobolka. Waxa uu matalaa degmada Queens la yiraahdo 36aad magaalada New York wuxuuna qayb ka yahay siyaasiyiin cusub oo hadda soo baxay oo horumar weyn sameynaya inta badanna ku ololeeya cadaaladda xagga dhaqaalaha in xuquuqda dadka ay guryo u helaan iyo inuu mowqif cad ka qaato siyaasadda arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka si loo fahmo cidda uu yahay ninkan Mamdani la yiraahdo iyo waxyaabaha uu ka shidaal qaato iyo taageerada sida uu ku helay ayaa waxa la leeyahay waxa uu u muuqdaa ninkani in cambaaraynta ay dhinacyada kale u jeedinayaan in cagsigeeda uu helo in uu marka la fiiriyo taariikh nololeedkiisa iyo mowqifkiisa siyaasadeed iyo wixii hore u soo qabtay waxaa muuqata in bay-adii siyaasadda ee uu ku shaqaynayo ay ka duwan tahay siyaasadihii hore ee Mareykanka uga jiri jiray. waa gartay sidee noloshiisii hore ama taariikhdiisii sida halka uu ku dhashay maxaan ka ognahay Zohran Mamdani ayaa ku dhashay magaalada Kampala sanadkii 1991 waxa uu ka dhashay qoys aqoon-yahano ah iyo fankana ku fiican. Aabihiis Mahmoud Mamdani ayaa waxa uu ahaa nin aqoon-yahana oo Afrika iyo taariikhda gumaysigii Afrika wax badan ka og aqoon badanna u leh. hooyadiisna waxa la yiraahdaa Mira Neer waxa ay ahayd dadka filimada sameeya filimada ay sameeyso waxa kamid ah Salaam Bombay iyo Mansoon Wedding ama Nikaahi Mansoon iyo filimo kale ninkan ayaa waxa uu ku soo koray dhaqamo fara badan waxaana uu Zohran si sahlan oga hadlaa cadaalad darrada dadka soo galootiga ah iyo siyaasadda caalamka asagoo da'yar ayuu bilaabay inuu arrimahaasi uu xiiseeyo. Markii uu ilmaha yar ahaa qoyskiisa ayaa waxay u soo wareegeen magaalada New York halkaas oo uu galay school kadibna uu galay jaamacadda la yiraahdo New Haven ama New Haven ka hor inta uunan siyaasadda ku soo biirin. Mamdani ayaa waxa uu soo noqday xildhibaan. Khibraddiisa ayaa waxay qaabeysay in uu ka shaqeeyo arrimaha guriyeynta iyo cadaaladda dhaqaale. Marka la fiiriyo taariikh nololeedkiisa waa ka duwan yahay siyaasiyiinta badan ee Mareykanka ee gaar ahaan New York ku dhaqan.
waxa uuna noqday nin hadda siyaasadda kusoo biiray oo cadcad. taageerayaashiisa ayaa waxay u arkaan inuu buundo u yahay wadamada koonfurta adduunka saddexaad loo yaqaano iyo siyaasadda Mareykanka. dadka dhaleeceeya ayaa waxa ay ku doodayaan in nolosha uu kusoo koray iyo khibradiisa ay aaminsan yihiin in uu ka duwan yahay siyaasadda ay fahmi karaan dadka Mareykanka khibradda uu caalamka u leeyahay ayaa saameyn ku leh siyaasadihiisa iyo qaabka uu oga hadlayo arrimaha caalamka. waa gartay marka siyaasadda siduu ku soo galay iyo niyadjabkii uu la kulmay 2020kii bal inooga waran. Mamdani ayaa siyaasadda ku soo biiray sanadkii 2020kii markii uu u tartamayey in uu xildhibaan ka noqdo baarlamaanka aqalka hoose ee New York ama degmada 36aad oo ah deegaanka uu degan yahay Astoria la yiraahdo oo kamid ah xaafadda Queens. waxa uu ka tirsanaa dadka ugu cadcad isbedel doonka xisbiga dimuqraadiga iyo xisbiga arrimaha bulshada ee Mareykanka. waxa caqabad la tartamayay oo caqabad ku noqday ninka xilka markaasi hayay oo Arabella Sematas la yiraahdo. guushiisa ayaa waxa loo tixgeliyay inay ahayd mid isbedel weyn ku keenta siyaasadda. waxay qayb ka ahayd isbedelka ku imaanayay musharaxiinta siyaasadda isbedel doonka ah gaar ahaan xisbigii uu markaasi dimuqraadiga oo ka tirsanaa oo ku guuleystay doorashooyinkii maxalliga ah ee meelo badan oo kamid ah magaalada New York. taageerayaashiisa ayaa waxay u arkaan guushiisan inay tahay guul usoo hoyatay siyaasadda laga dhex ololeeya bulshada dhexdeeda. Mamdani ololihiisa iyo aad wuxuu isugu tiirinayay ugu tiirsanaa inuu albaab kasta garaaco xaafadaha uu rabo codka in uu luqado badan dad ku hadla ay la shaqeynayeen oo ah dad mutadawiciin ah halka musharaxiinta kale isku harleynayeen lacaga ay kasoo urursadaan shirkadaha waaweyn. dadka cambaareynaya mowqifkiisa ayaa ku doodaya in ajendayaashiisa ay ahaayeen kuwa aan maskaxda geli karaynin ama siyaasad mabaadii culus ku xiran. laakiin si kastoo ay tahay doorashadiisa ayaa waxay muujinaysaa in isbedel weyn uu ku yimid nidaamkii siyaasadda ee loo maareynayo iyo dadka waxa ay ka fahmi karaan gobolka New York ee waddanka Mareykanka. waa gartay marka maxaa ka mid ah waxyaabaha uu sheegay inuu muhiimadda siinayo. markii uu xafiiska qabtay January 2021kii Mamdani ayaa bartilmaameed ka dhigtay siyaasadda guriyeynta iyo xuquuqda dadka deegaaminta u baahnaa ama guryaha deganaa iyo gaadiidka dadweynaha. Mamdani ayaa waxa uu noqday codadka ugu muhiimsan ee riixayay in dadka aan guryahooda laga saarin qawaaniintana wax ka bedelay loogu talagalay in lagu difaaco dadka guryaha kireysta oo aan ijaarka lagu qaaliyeyn karaynin isla markaasna aan guriga si sahal looga saari karaynin. wuxuuna ku doodayay in guriyeynta loo tixgeliyay inay tahay xuquuq asaasi oo qofka bini'aadamku leeyahay oo aan ahayn wax laga baac mushtari karo. taageerayaashiisa ayaa u arka in uu horseed ka ahaa taageerista dadka dhaqaalahooda uu aad u yaryahay oo guryaha deganaa inaan guryaha laga saarin iyo qoysaska shaqooyinka aan lacagaha badan mushaarka badan laga qaadin ka shaqeeya. ururka ay leeyihiin dadka guryaha kireysta iyo qaar ka mid ah xisbiga dimuqraadiga ee siyaasadooda furfuran tahay ayaa kasoo horjeestay siyaasaddiisa. waxayna ku tilmaamayeen in uu cabsi gelinayo in guryaha la dayactiro ama dad laga ijaaro. doodaasna waxaad moodaa in ay xiisad weyn ka abuureysay muddo dheer magaalada New York marka ay timaado. Mamdani ayaa sidoo kale waxa uu taageerayay in dadka xoolaha haysta canshuur laga qaado lana ballaariyo adeega bulshada
in la difaaco xoogsatada mowqifkiisa ayaa waxuu ahaa mowqif horumar doon ah dhaqdhaqaaqaas oo dowladda Mareykanka ka dardalgalay wixii ka dambeeyay 2008 xilligii qalaasaha dhaqaale uu Mareykanku afeeyay wuxuuna noqday nin codkar ah oo u qareema dadka saboolka ah oo gaadiid raqiisa ama sicirkooda hoos loo dhigay u hela wuxuuna gacan ka geystay ololihii lacagta lagu raaco basaska uu bilaash uga dhigayay xaafadda uu degan yahay Queens wuxuuna sidoo kale dalbanayay in maalgelinta ay ka timaado dowladda hoose qaybta gaadiidka qaabilsan siyaasaddiisan ayaa mudnaanta siinaysay inuu aaminsanaa in xukuumadda ay si toosa hoos ugu dhigto cadaalad darrada waxaana loo arkayay in uu sumcad badan iyo magac badan ka helay dadka codbixiyaasha ah ee siyaasadooda bidixda u janjeertay halka dadka kasoo horjeedana ay ku doodayeen qorshayaashiisa waxay u baahan yihiin lacag badan lacagtaasna mid la bixin kara maaha waa gartay aragtidiisa siyaasadda arrimaha dibadda iyo doodaha ka dhashay bal inooga waran inkastoo uu ka shaqaynayay dowladda hoose Mandani ayaa aad uga wada hadlayay mowqifyo kale oo la xiriira siyaasadda arrimaha dibadda gaar ahaan markay timaado Falastiin Israa'iil iyo dowladda Mareykanka faragelinta ay ku hayso caalamka intiisa kale marka ay timaado Falastiin iyo Israa'iil Mandani ayaa waxa uu aad uga hadlayay Mareykanka saraakiishiisa la doorta waa inay ilaaliyaan xuquuqda Falastiiniyiinta oo uu ku sheegay waa in la soo afjaraa militariga Mareykanka gargaarka ay siinayaan Israa'iil wuxuuna taageerayay in dowlad Falastiiniyiintu leeyihiin la dhiso in baaritaan lagu sameeyo xadgudubyada ka dhanka bini'aadamka in hubka loo wareejinayo ama lagu isticmaalayo in dad rayida wax lagu yeelo in Mareykanku uu joojiyo taageerayaashiisa oo qaar badan ay soo galootay yihiin muslim ama carab ama yahuudda Falastiiniyiinta la jirta ayaa soo dhaweeyay hadaladiisa oo aaminsan in siyaasiyiinta caadiga ee Mareykanka inay arrintaas ka baaqsadaan waxayna ku doodayaan in uu keenay akhlaaqiyad wanaagsan oo markii hore hal dhinac siyaasad u janjeerto Israa'iil lagu taageeray kaliya ay socotay dadka cambaareeya oo ay ka mid yihiin dadka Israa'iil taageera iyo ururada Israa'iil taageera ayaa ku eedeynaya inuu si sahal ah ka dhiganayo colaad mirqsan oo uu ku sheegayo hadallo aad u kulul oo guracan u jeedinaya Israa'iil Mandani ayaa ku gacan saaraya eedeymahaasi inuu dhinac u janjeero oo ku adkeysanayaa in uu u qareemayo u dhiirigelinayo xuquuqda aadanaha in loo arko inayna ahayn in Israa'iil looga soo horjeedin ama Yuhuudda looga soo horjeedin wuxuuna markasta ku celceliyaa in uu garab taagan yahay dadka aan hubaysnayn in aanan waxba la yeelin meeshay rabaan ha ku noolaadaan ama ciday rabaan ha aadaan Mandani ayaa inta badan faragelinta waddanka Mareykanka ee wadamada dibadda cambaareeya cunaqabataynta uu isticmaalo Mareykanka kasoo horjeeda xulufaynta uu sameynayo ayuu u arkaa inay tahay tallaabo military mowqifkiisaas ayaa waxa uu yahay mid imperialiyadda looga soo horjeedo iyo siyaasaddii Mareykanka ee ku wajahan wadamada koonfurta loo yaqaan ama dunyada saddexaad taageerayaashiisa ayaa waxay u arkaan inuu yahay nin siyaasaddiisu ay abuurkeedu cusub tahay dadka cambaareeyeen waxay ku doodayaan siyaasaddiisu inay tahay mid aanan bislayn oo qaangaar aan ahayn kuna filnayn buu leeyahay in siyaasad dhab ah uu meel mariyo laakiin waxay noqotaba waa guuleystay ninkaasi waa gartay marka isla qodobkaasi taageeradan xooggan xagee ka timaaday Mandani ayaa waxa uu noqday siyaasiga ugu mudan ee ugu dhalinta yar ee siyaasadan cusub ee isbedel doonka ah oo awood siiyey dadka soo galootiga ah dadka guryaha degan ee saboolka ah inay xuquuq yeeshaan waxaana uu noqday codka keliya ee u taagan dadkaasi baraha bulshadana waxa uu ku leeyahay meeqaam aad u weyn iyo awood
وهذا الكيس سفي عنو جيديو لغة دي سنة وحوية لغات أي سامين وين كدلتي dadka cambaaraynaya si kasto oo ay ugu doodaan in uu matalo koox yar haddana codkiisa ayaa afkaar ahaan waxa uu yahay mid aynan ka muuqan mid ka dalbaya isbedel bulsho weynta laakiin raba oo keliya in qaabkiisa siyaasadeed u noqday mid la iska celinayo dadka xadgudubka sameynaya qofkii dhegeysta waxa weeye wuu taageerayaa oo waxa uu noqonayaa nin akhlaaqiyaadkiisu ay fiican yihiin doodiisana waxay ku tilmaameen inay tahay mid dadka kala qaybinaysa laakiin waxay noqotaba ninka uu ka raagay dadkii lacagaha badan ku bixinayay siyaasadda oo rabay in ay xukunka ay si sahla ku helaan laakiin hadda waxaa moodaa dadkii saboolka ahaa iyo dadkii kale inuu ka soo helo codadka kana guulaystay waa gartay ugu dambeyntii maxaa lagu tilmaami karaa ninkan sida cajiibka ah ku noqday duqa magaalada New York Zohran Mamdani ma aha siyaasi caadi ah oo Mareykan ah waxa uu xidid ku leeyahay caalamka intiisa kale Afrika Hindiya waxaana weeye nin ka soo shaqeeyay xaafadaha oo degan yahay rabana in uu wax ka bedelo magaalada New York siyaasadeeda iyo wixii ka fog taageerayaashiisa ayaa waxay u dabaaldegayaan inuu yahay nin geesi ah mabaadi fiican oo lagu dhiirigelinayo loona ololeynayo dadka saboolka ah si fiican uga soo shaqeeyay dadka ka soo horjeeda ayaa ku doodaya in mowqifkiisa uu yahay mid aan la meel marin karin afkaartiisuna ay culus tahay hase ahaatee dad badan ayaa aad u soo dhaweeyey doortayna qaar ayaa ka soo horjeeda Mamdani lama beenayn karo inuu noqday ninka ama codka ugu saameynta badan cadaaladda ka hadla siyaasadda Mareykanka sinaanta iyo mas'uuliyadda caalamka ka saaran qarniga 21aad Mareykanka doodiisa ayaa waxay la xiriirtaa guriyeynta siyaasadda arrimaha dibadda cadaalad darrada xagga dhaqaalaha ka jirta ee si dardargelinaysa dadka inay sabool sii noqdaan iyo doorka uu ku leeyahay in la qaabeeyo sidii la isugu wadi lahaa saboolka iyo tujaarta wuxuuna ku guuleystay tartankii bishii Juun 2025 xisbiga dimuqraadiga loo tartamayay kursiga duqa magaalada waxaana uu ka guuleystay Andrew Cuomo oo ahaa duqii magaalada ee la doortay markii la doortay bishii November doorashadii guud haddana waxaa moodaa inuu noqday ninkii ugu horreeyay muslim ah Hindi ah Uganda ka soo horjeeda oo mayor ka noqda magaalada New York waxaadna moodaa inuu yahay nin dhalinyaradu ay aad u jecel yihiin oo ay aad u soo dhaweynayaan dadka shaqaalaha saboolka iyo dadka degan magaalada oo dhibaato badan tirsanayay waayahay aad baa u mahadsantahay maxamed daawadayaal adinkana aad baa u mahadsantihiin maanta inta ayaan barnaamijka bandhiga kusoo gabagabaynaynaa waxay naga xasuusinaa haddii aad ku cusub tahay aadan ugu xirnayn kusoo biira barahina kala duwan ee internetka aan ku leenahay intaan ku kulmi doono barnaamijka midka ku xigo insha allahu nabadgelyo